أفلحت في الأولى وفي أخراك. أفلحت في الأولى وفي أخراك. النفس والشيطان إن خالفتها. أفلحت في الأولى وفي أفلحت في الأولى وفي أخراك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. درسنا وحكى بلابنا يا آيات صدن يا أفر سورة التوبة. waxay noo soo dameeyey aayaadkii ilaahay subxaanahu watacaala inuu kaga warramayay casharkeennii hore aakhirkiisii yahuud iyo nasaara nimanka la yidhaahdo inay caabudeen yahuudna cusayr inay yidhaahdeen waa ibnullah oo sida ay ku caabudeen, nasaarana nebiyullaahi ciise iyagoo inay ku fidnoobeen oo ay caabudeen. sidoo kale waxaa laynoo soo sheegay culimmadoodii nimankii la odhan jiray yahuud, culimmadoodii rabbiyaal inay ka dhigteen oo ilaahay caasiyadda ay caasinayeen inay ku ateeceen. nasaaro nimanka la yidhaahdana cubaadoodii wadaadada suufiyaalka ahaa inay rabbiyaal ka dhigteen ilaahay ka sokow oo wixii ay fareen oo aan ilaahay raalli ka ahayn oo xaaraanta ahaa inay ku raaceen. markaas ka gadal waxaa inoo soo dameeyey laba aayadood oo bishaaro ah oo ilaahay ummadda muslimiinta ugu bishaaraynayo si kastoo gaaladu isugu dayaan nuurka ilaahay. nuur allah waa diinta uu la yimid nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam, waa kitaabka qur-aanka ah, waa towxiidka, waa islaamnimada iyo iimaanka. cid walboo isku dayda inay damiso ilaahay inuu ka diiday subxaanahu wa tacaala, diintiisana ilaahay inuu ballan qaaday inuu dhammaystirayo. sidoo kale allah inuu yahay allaha soo diray nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo caqiido saxiixa iyo camal saalixa iyo cibaadaad xaqo ilaahay raalli uu ka yahay oo ilaahay lagu caabudayo ilaahay inuu la soo diray. sababtuna waxa weeye si diinta islaamka diinihii kale oo dhan ilaahay uga saramariyo. waa bishaaro. saasay diinta islaamka u fidaysay ilaa maanta. waa diinta caalamka ugu fiditaanka badan ilaahay fadligiisa. nebigu wuxuu xadiis saxiixa inoo ku sheegay calayhi salaatu wassalaam inta habeenka iyo maalintu ay gaadho diinta islaamku inay gaarayso ma jiro buu yidhi guri maxaanku idhaahday ama dhagax ka dhisan ama dhoobo ama khaymad ka dhisan ilaaba se diinta islaamku waa gelaysa. qof ku cisooba iyo qof ku dulloobaba meel kasta diinta islaamku waa gaaraysa. sidii bay ilaahay hadda u socotaa. fiditaankeedu aad buu u socdaa diinta, laakiin dowladnimadii baa ka maqan. iyadana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo soo celiyo diintii islaamka oo dowladnimadeedii wadata oo siday u ahayd ilaahay u soo dejiyey loogu dhaqmayo oo dadka loogu xukumayo. aayaddaanna aayaadkii hore ayay la xiriidhaa oo aayaadka hore ilaahay wuxuu inuu ku sheegay nimanka hore oo gaalada ahaa culimmadoodii inay fasaadeen. aayaddaanna tii baa lasii xoojinaya. nimankii axbaar la ohan iyo ruhbaantu inay dad ahaayeen dad xun ah oo xaaraan cun inay noqdeen. sidoo kale waxaa laynoo ku sheegayaa dadka aqniyada laftigooda iyo tujaartu iyaguna xoolihii ay haysteen xaqii lagu lahaa oo masaakiinta hadday ka bixin waayaan iyaguna inay fasaadayaan oo caalamku fasaadayo oo dhib badan arrintaas ay ka imaanayso. yaa ayuha aladiina waroy kuwii aamanuu rumeeyeenow inna kathiiran in badan oo min alaxbaari culimmadii yahuudda ka mid ah waruhbaani cubaadii ama suufiyaalkii nasaarada ka mid ah laya'kuluuna waxay cunayeen amwaala annaasi dadka xoolahooda ayay bilbaatil jid baatila ay ku cunayeen oo xaaraan ah. waa ka laaluush bay qaadanayeen, hadiyaad baa loo keeni jiray ama daraa'ib ama canshuur wadaadnimo ay ku qaadan jireen. waa ka arrintaa hadda
wadaadadeennii qaar bay arrintaas saamayn ku lahaydo shaqaysan mayo, meel buu iska fadhiisanayaa, wuxuu ku nool yahay wax dadku ay ula niyoodaan inay wax kaga helayaan. wuxuu iska dhigaya ilaahay subxaanahu watacaala maamulkii sidii qof wax ka hayo oo kale. weli baan ahay buu leeyahay, halkaasuu fadhiisanaya, halkaas shaqaysan mayo, maxaan ku ihahda xooggiisa maali mayo, cilmi uu leeyahay ku shaqaysan mayo, halkaasuu wuxuu ku sugayaa wax loogu keeno. sidaas waa dhaqankii yahuud iyo nasaara culimadooda ilaahay ku eedeeyey subxaanahu watacaala. xaaraan cunayaal bay ahaay, laaluushka ugu badnaa baa layidhi, markay garaha galaan laaluush bay qaadan jireen. sidoo kale magac culimo ayay xoolo ku qaadan jireen. soo culimo ma aha ha la ysaga tuumiyo, dadku ilaa wa ilaa xoolaha ha keenay. waana wixii ku xambaaray nimankaasi dacwadii nebiyullaahi maxamed inay diidaan calayhi salaatu wasalaam, oy nebiga ku xasdeen. maxaa yeelay waxay is yidhaahdeen dee dhaqaalihii baa idinka istaagaya, dadkay diinta madax ugu ahaayeen, waa ku ladnaayeen, wax badan bay ku heli jireen. haddaad nebiyullaahi maxamed raacdaan calayhi salaatu wasalaam, xoolihii waa waayeysaan bay is yidhaahdeen. laakiin diintiina waa waayeen, xoolihiina waa waayeen. marka dambe waa ti laga qabsado laga adkaado. la yaakuluuna waxay cunayaan wadaadadaas amwaala annaasi dadka xoolahooda bilbaatili, baatil bay ku cunayaan. halkaa waxay digniin u tahay qof walba magac culimo wata xaaraanta inuu iska ilaaliyo, dadka xoolahooda magac diineed si baatil ah inuu ugu cuno inuu iska ilaaliyo, isagoo diinta ugu gabanaya. wayasuduuna waxay hor istaagayeen wadaadadaas can sabiilillaah, ilaahay jidkiisana dadkay ka hor istaagayeen. waa ka diintiibay dadkii waxay uga noqdeen istaakul horta allaho, dadku inay diinta qaataan. ama waa nebiyullaahi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam risaaladiisi dadka u diidaya oo nebiga ha raacinina odhanaya. ama xataa waqtigoodii waxyaalo badan oo xaqay hor istaagayeen, maxaa yeelay waxay ka baqayaan hunguriga iyo waxay helayaan inay waayaan. sidaa daraaddeed wax ilaahay xarimay bay dadka u xalaalaynaya, wax ilaahay xalaaleeyey bay dadka xaaraan uga dhigaya, si aysan waxay dhantooda ay u gaaraan. qofkuna hadde markaas diintii ilaahay qof hor istaagay weye, fatwaa la weydiinayaa, wuxuu uga jawaabayaa si hungurigiisa u dan ah. dhankama leh ilaahay subxaanahu watacaala xaqii ilaahay uu soo dejiyey inuu caddaeyo. marka qaarkood wuxuuba isleeyahay haddaad xaqa sheegtid waxbaad ku waayeysa, jagaad ku waayeysa ama hunguri baad ku waayeysa. diintii ilaah markaa qofka hor istaaga. wayasuduuna waxay hor istaagayeen oo dadkii kale ka hor istaagayeen can sabiilillaah, ilaahay jidkiisa iyo diintiisa. waaladiina halkaana waxaa ka bilaabatay dadkii tujaarta ah oo xoolahooda zakadii iyo xaqa ilaahay aan ka bixinay. waaladiina kuwii iyagu yaknizuuna kaydsanayay addahaba dahab, waalfidata iyo lacagta kuwa kaydsanaya, oo walaa yunfiquunaha xoolahaas kansiga ah aan ku bixinayn fii sabiilillaah, ilaahay jidkiisa aan ku bixinayn. fabashirhum kuwaas ugu bishaaray rasuulka ilaahayow bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo aad iyo aad u xanuun badan oo xanuunjinaya ugu bishaaray. halkaana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u digayaa oo cadaab adag loogu digaya dadka xoolaha leh oo hantidooda dahabka iyo fidada waa tusaale, doolar ha ahaato, shilin soomaali ha ahaato, lacag kale ha ahaato, adduun kale ha ahaato, qofka kaydinaya oo aan xaqii ilaahay aan ku bixinayn, zakadii aan ka bixinayn. culimada qayb baa waxay yidhaahdeen wax kastoo qofka cuntadiisa markaas uu u baahan yahay iyo dharkiisa iyo cabitaankiisa ka baxsan qofku inuu dhigto maba ahaba. saxaabiga abudar radiallahu tacaala canhu iyo rag kale ayaa arrintaa ku tegey oo saasuu fatwoon jiray, xoolaba inaan la dhigan karin. aayaddan iyo aayaad kale isagoo daliishanaya. laakiin sida culimmadu u badan yihiin raajixaana waxa weeye xoolaha laga hadlaya waa xoolaha zakada aan laga bixin. waa ka qofku balaayiin hadduu dhigto laakiin xaqii ilaahay uu ka yaqaan, zakada uu ka bixinayo, sadaqada uu ka bixinayo, kanzi ma aha. waxa weeye xaaraana aanu ku shaqaysana xalaal uu ku shaqaystay ajar badan buuba ka helaya, waa khayr. maxaa yeele dad xoolo leh haddaan adduunka jiri lahayn haddee cidiba maxaa noloshoo dhan baaba ciriir geli lahayd, waa la isku ladan yahay. markaas ka gadaalna ciqaabka kuwaas lagu ciqaabayo ayaa ilaahay inoo sheegaya subxaanahu watacaala. waaladiina kuwa yaknizuuna kaydinaya addahaba dahabkii bay kaydsanaya. kansiga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa xoolaha dhulka lagu aaso. dadkii hore dhulkay qori jireen, dhulka khasnad u ahaa, dhulkay ku aasi jireen. marka hadda ama sutuuq ku xir
ama khasnad qofku ha ku xirto ama bangi ha dhigto mar hadduusan xaqi ilaahay ka bixinayn kanzi saasay ku noqonaysa dhulka in lagu aasa shardi ma ah adahaba dahabkii bay kaydsanaya walfidata iyo lacagtii walaa yunfiquunaha ku bixin mayaan kuwaasoo aan ku bixinayn fii sabiili illaah haada walaa yunfiquunahumaa lama oran oo tasniyadii dahabka iyo fidada looma celin culimmada qaar baa yidhi fidada keliya damiirkuu noqonayaayo maxaa yeelay dahabka fidada weligeed ka badan laakiin sida raajixa waxa weeye haadu kanzigiiba u noqonaysa xoolihii la kaydsanayay ama dahab iyo lacag kay doonaan ha ahaadeen fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa aan ku bixinayn fabashirhum ugu bishaaray kuwaas bicadaabin cadaab aliimin oo xanuun badan sidii loogu cadaabayay marka waa ka yowma maalin ayaa cadaabka adag lagu cadaabaya yuxmaa ama wadkur xus yowma maalinta yuxmaa lagu soo kululaynayo lagu gubayo calayhaa dahabkii iyo lacagtii ayaa waxaa lagu soo gubaya fii naari jahannama naarteeda dabka jahannama ayaa lagu soo cadaynayayo lagu gubaya fatukwaa markaas ayaa sidii kaawiyadii loogu kaawidanaya oo ogadooda loo marmarinaya bihaa xoolihii waxaa laga kaawadanaya lagu gubaya jibaahuhum wejiyaalkooda wa junuubuhum dhinacyadooda wa duhuuruhum dhabaradooda jirkoodao dhan wey markaasaa weliba qalbigana laga dilayaa waxaa la odhanaya haadaa xoolahan lagugu cadaabaya maa kii weeye kanastum ay kanastumuuhu aad kaydsatee weye oo xaqii ilaahay aad ka diideen lianfusikum nafafyaalkiina aad u kaydiseen weeye faduuquu dhadhamiya maa kuntum wixii aad ahaydeen adduunyadii cadaabkiisa taknizuuna kuwii kaydsada ay taknizuuna waxaad adduunkii kaydsanayseen ciqaabkiisii waa kan dhadhamiyaa la odhanaya waa kan nabigeenu calayhi salatu slam xadiis saxiixa wuxuu inoo ku sheegay qofka xoolaha sakada aan ka bixin maalinta qiyaamada xoolihii in looga soo dhigayo gungumo weyn in looga dhigayo laba barood meesha madaxa kule suntii ay ka baratay markaasuu ka isaga duubay markaasuu hadda labada qowlal midka goosanaya isagoo odhanaya anaa kanzug anaa maalug waxba ha iga cararin xoolahaagii kaydkaagii baanahay aad dhigatay oo adduunyadii xaqii ilaahay aad ka bixin weyde taa keliya ma aha xoolahoo dhan ayaa nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam geela ninkaan sakada ka bixin geelii baa ku durdurinaya oo lagu ciqaabaya loodii saasoo kale ayay waxaa weeye maxaan ku qoobka ay ku dilaysa oo lagu cadaabaya ariga saasoo kale wax kastoo qofku xaqii ilaahay uu ka diiday maalinta qiyaamada intaan xisaabtaba la gaarin dadka janno iyo naar aan loo kala dirin ka hor baa lagu cadaabaya allahu mustacaan yowma maalin ayaa lagu cadaabaya cadaabka xanuunka badan yuxmaa lagu soo ugayo lagu soo gubayo calayhaa fidadii iyo dahabkiiba u noqonaysaa booskii naa'ibu faacilka iyadaa gashay fii naari calayhaadaas ayaa gashay macnaha jaariya majruurkaas fii naari jahannama naarteedii ayaa lagu soo ugayayo lagu soo gubaya lagu soo cadaynaya fatukwaa markaasaa lagu gubaya oo lagu feeraynaya bihaa dahabkiiyo lacagtii naarta lagu soo cadeeyey oo lagu soo gubay jibaahuhum wejiyaalkooda wa junuubuhum dhinacyadooda wa duhuuruhum dhabaradooda waa jirkii oo dhan markaasaa lagu odhanayaa haadaa kani kaydkan waxaan lagu cadaabaya maa kii weeye kanastum ay kanastumuuhu aad kaydsateen adduunyadii lianfusikum nafafyaalkiina aad u kaydiseen faduuquu dhadhamiya maa kuntum wixii aad ahaydeen taknizuun kuwa kaydiya allah wuxuu yidhi ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allah agtiisa 12 wey shahran oo bilood wey fii kitaabillaah ilaahay kitaabkiisa looxo maxfuud ahna saasaa ku sugnay yowma maalin ayaa sidaa ilaahay ku qoray ilaahay kitaabkiisa ama bilaha 12 ilaahay uu ka dhigay sanadkii khalaqa allahu uumay alsamaawaati samooyinka waalarda iyo dhulka minhaa waxaa ka mida bilahaas 12 arbacatun 4 ayaa ka mid ah xurumun oo xurmo leh daalika kaas sanadka bilihiisu inay yihiin 12 bilood oo bilaha dayaxa ah oo 4 bilood oo xurmo lihi ay ku jiraan kaas ayaa wuxuu yahay
addiinu diinta iyo dhaqanka alqayimu ee toosnaanta badan falaa tadlimuu dadow ha dulmiyinnina fiihinna bilahaas xurmada leh dhexdooda anfusakum nafyaalkiina ha dulmiyinnina oo dembiga aad gashaan waa ka wenyahay dembiga bilaha kale la galo waqaatiluu la dagaalama almushrikiina kuwa mushrikiinta ah kaafatan dhammaan xaaleeyihiin idinkoo aan kala reebin ama idinkoo isku dhan gaalada la dagaalama oo mid ah kamaa yuqaatiluunakum siday idinkula dagaalamayaan idinkaba kaafatan iyagoo isku dhan waclamuu ogaada ana allaha allah maca almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsada weligiis inuu la jiro allah subxaanahu watacaala aayaddan dhowr arrimood ayaa ilaahay inoo ku sheegay axkaam dhowr ah ayaa ku jira oo waxaa ka mida kow bilaha sanadka ilaahay agtiisa laga ogol yahay inay yihiin 12 bilood lawx maxfuudna sidaas ilaahay uu ku qoray laga bilaabo maalintii samaawaadka iyo dhulka ilaahay abuuray subxaanahu watacaala bilaha laga hadlayaana janaayo iyo february iyo maaj maaha waa bilaha dayax oo ka bilaabanaya muxaram ama sako ee ka bilaabanaya sida taal waxaan ku iraahdaayay rabiicul awal ama mawliid aynu niraahno ama bisha labaad rabiicu thaani markaas kadibna jamaadul uula iimaanayso afarta bilaha samad ay yiraahdaan Soomaalidu geela aanay bixin jamaadul aakhir ay iimaanayso dabadeedna rajab ay iimaanayso ama sabuux dabadeed soondheer uu iimaanayo ramadaan ay iimaanayso ama bisha soonka dabadeed soonfur ay iimaanayso sida taal ay iimaanayso ugu dambeeyna bisha carafo ay iimaanayso 12 bilood weey kuwaan gaaladu hadda ay inoo keeneen laga hadli mayo dulinimada iyo liidnimada dhacday bay ka mid tahay muslimiinta ku dhacday bilihii ilaahay caalamka uu ka ogolaa oo ilaahay uu raaliga ka ah inta laga tegey kuwa gooray bilaabanayaan iyo gooray dhammaanayaan aan la garanayn oo wax lagu tilmaansado aan la garanayn in la qaato bilaha dayaxa qof walba meeshuu joogo miyi magaalo ayuu kala socdaa bishii waa dhalatay koo wey waa dhammaatay waa la ogyahay caawa waa la arkaya waa kala baran tahay waa ka kalandarna waa loo samayn karaa caalamkuna la isku ogyahay waxaan jirinba kalandar waa loo sameeyey goortii bilowda aan la garanayn bilo la garanayo goortii bilaabanayaan ayaa fududbaba in tawqiit loo sameeyo taas waa taas oo bilaha sanadka ilaahay raaliga uu ka yahay oo ilaahay uu xukumay waa 12 bilood sidoo kale waxaan ka qaadanaynaa aayadda biluhu goormay bilowdeen iyo waqtiguba waa samaawaadka iyo dhulka markii ilaahay uu abuuray intaa ka hor dee waqti ma jirin ilaahay baa og siday wax ahaayeen laakiin habeenka iyo maalintii waqtiga lagu xisaabiya dee markii dhulka iyo cirka ilaahay abuuray oo qoraxda iyo dhulka ilaahay abuuray markaasaa waqtigu bilowday ayaantaas laga bilaabo biluhu 12 bilood bay ahaayeen waxaa kaloo aayadda ilaahay inuu ku sheegay bilahaas inay ka mid yihiin 4 bilood oo xurmo leh 3 waa isku xigaan dilqacda iyo dilxija iyo muxaram ama bisha sida taal iyo carafo iyo bisha sako Soomaalida sakada ay bixiyaan dhawaan inuu soo dhaaf 3 waa isku xigaan bisha afraadna waa sabuux bisha la yiraahdo ama rajab oo u dhaxaysa bisha soondheere ama shacbaan oo ramadaanta ka horeysa iyo 4 bilo samad bisha ugu dameysa jamaadul aakhirah bisha u dhaxaysa weey oo rajab la yiraahdo 4 bilood waa bilo xurmo leh ilaahay wuxuu yiri bilaha sanadku inuu sidaay 12 bilood oo dayaxa ah 4 bilood oo xurmo leh inay ka mid yihiin dalika diinul qayyim diinta toosani taaway bilahan kale diin toosan maaha waa diin qalloocan waa diinaan ilaahay raali ka ahayn subxaanahu watacaala diinta toosani taaway 12 bilood oo dayaxa 4 bilood oo xurmo leh ay ku jiraan falaa tadlimuu ha dulmiyinnina fiihinna bilaha dhexdooda anfusakum nafafyaalkiin fiihinna xagee u noqonaysa culimada qaar baa yiri sanadkoo nabi u noqonaysa laakiin sida raajixay waxa weeye 4 bilood oo xurmada leh dulmi marna lama ogola laakiin dulmi bilaha kan la galaa waa ka weeyahay bilaha kale dulmi la galo qofkii khata xataa bilahan qof u dila waxa weeye bilaha xurmada leh diyadiisu waa muqallada boqolkii muqallada ah buu bixinay 20 ma jidho inagu samanaqaa arinta waa in la barta qabaa'ilka waa in la barta 4 bilood qofkii gaari baa laga doomay khata kala loo dilay hadii diya la kala qaadanayo muqallada weydiyad waa ka
waqaatiluu dagaalama almushrikiina kuwa mushrikiinta la dagaalama kaafatan xaal ay yihiin kuwii isku dhan. kaafa xaggee laga xaalaynay? qaatiluu wowgeeda waa laga xaalay, macnaha idinkoo isku dhan oo mid ah gaalada la dagaalama. almushrikiinana waa laga xaaleeyayo culimada waxay noqonaysaa gaaladiyo aydaan kala reebin la dagaalama. kamaa yuqaatiluunakum iyagoo say idinkula dagaalamayaan kaafatan iyagoo isku dhan. halkan marka la marayo culimmadu waxay ka hadlaan bilaha xurmada leh. waagii hore intaa nebiyullaahi maxamed la soo dirin calayhi salaatu wassalaam in la dagaalamo xaaraan bay ah. nebiyullaahi maxamed markii lasoo diray sanooyinkii hore in la dagaalamana xaaraan bay ahayd oo layskuma hay. laakiin markii dambe dagaalkii bilaha la dagaalamayay gaalada lala dagaalamayay muslimiin dagaalamaysa marna xalaal noqon mayso laga hadli maaye ma la nasakhay oo waa lala dagaalami karaa bilaha xurmada gaalada ma lala dagaalami karaa? masixuunka lama naskhin muxkam weeyo sidiiba u taagan yahay oo bilaha xurmada leh jihaad lama geli karo. laba qowl bay culimada ka leeyihiin. culimada qaar baa waxay yidhaahdeen xukunka waa la nasakhay oo aayadan baa lagu nasakhay oo ilaahay uu yidhi waqaatilu mushrikiina kaafatan, oo kaafatan waxay u celiyeen 12 biloodba la dagaalama gaalada maca afartii xurmada lahayd ay ku jirto. kamaa yuqaatiluunakum kaafa dalaa'ilkanana way daliishadeen oo ay ka mid tahay ayaantii maxaan ku idhaahdayey dagaalkii hadda aynu soo marayn nimankii hawaazin nebigu markuu go'doomiyey calayhi salaatu wassalaam wuxuu go'doomiyey bisha dilqacda oo ka mida bilaha xurmada leh. waxyaalo kalena way daliishadeen. qolada kale waxay yidhaahdeen maya xukunku waa sidiisii lama dagaalami karo. waxay daliishadeen dhowr aayadoo qur-aanka ka mid ah oo waxaa ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxilluu shacaa'ir allaahi wala shahra alxaraama ilaahay uu yidhi suurat ulmaa'ida aynu kusoo marna inaan la dagaalami karin. aayadda suurat albaqara baa ka mid ah yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiirun. iyo dalaa'il kale oy ka mid tahay tii hadda aynu soo marayn faidan salaka ashhuru lxurumu faqtulu lmushrikiina ilaahay uu yidhi aayatu sayf markii bilaha xurmada la yidhaahdo waa 4 bilood oo xurmada leh. xagga daliilka taasaa xoog badan marka. sidaa daraaddeed bilaha xurmada leh dagaal lama bilaabi karo. xurmadoodu sidii bay u taagan tahay. hadda gaalaa laga hadlayo islaam iyaga in lala dagaalamo marnaba lama ogola. innaga qabaa'ilkeenu badanaa waxaba islaayaan oo la isku imtixaamay bal u fiirso bilaha xurmada aad isu laaya maba kala jeclaba. allahu mustacaan. marka aayaddaana waxay kaga jawaabeen waxaa loo jeedaa waa gaaladii kaafatan gaaladay u noqonaysaa bilihii u noqon mayso. go'doomintii nebigu nimankii gaalada ah uu go'doomiyey bisha dilqacdana waxay uga jawaabeen culummadaasi dagaalku shawaal buu bilowday oo go'doomintu bishaasay bilaabatay. marka dagaalku hadduu bilaan xurmo lahayn uu bilowdo oo uu sii socdo dee dagaalkii waa lagu kala bixin dee dagaalkii laga bixi maayo markaas ilaa uu ka dhammaado waa lagu jiray. وبالله توفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك. أفلحت في الأولى وفي أخراك. النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك. أفلحت في الأولى